بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qofkan hortiina fadhiday darkaysaan waa Adna Maxamed Cali Adna Qaran. haddii aan sharaxaad kooban ka bixiyo naftayda, waxaan ahay gabadh aragga naafaka ah, ku nool, ku dhalatay, isla markaana wax ku baratay magaalada Hargeysa. sidoo kale waxaan ahay shaqaale ka hawlgala wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland. runtii 2012 sanadku markuu ahaa waxaan ku biiray urur looran jiray ama la yiraahdo Soobo oo ay leeyihiin dadka aragga naafada ka ahi. ururkaas ayaa aan kamid ahaa 9 sanadood ee ugu dambeeyay. markii ugu dambeysayna waxaan ka noqday gudoomiye ku xigeen sanadku markuu ahaa 2020 ama 2020ka. balse maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii koobaad 2021 isla markaana maalin Jimcaha waxaan idin cadeynayaa inaan ku biiray ururka TBG ama Tough Blind Girls. ururkaas oo ah ururka hablaha aragga naafada ka ah. runtii markii aan la tashiyo badan sameeyay oo aan naftayda runtii aan go'aan la gaaray ama aan la tashiyo badan sameeyay naftayda, waxaan go'aansaday in ururkaasi uu yahay ururka kaliya ee hablaha aragga naafada ka ah iyo ubadkooda oo adeega. runtii ururkaasi waa urur samafal, urur maxaan ku dhahdaa Allahumma salli ala Muhammad dee u taagan waxaad arki jirteen ama la maqli jiray hore urur naafa ah oo ama dee inta badan ama dee wax la arki jiray ama jiray urur naafa ah oo jira. laakiin ururkan wuxuu noqday urur isagoo naafa ah, ayagoo hablahaasi ay naafa yihiin oo araggi naafa ka yihiin ayaa haddana waxay yihiin hablo samafala oo dadkii caawinaya oo bulshadii cod oo ah. kuma koobno ururkaasi Somaliland oo kaliya, laakiin waa urur hiilu ah dhulka afka Soomaaliga lagaga hadlo oo dhan dadka aragga naafada ka ah ee ku nool. aniguna runtii dabcan waxaan go'aansaday inaanan ka hadhin halkaas ee aan ku biiro. haba yaraatee ma jirto wax dhibaato ah ama wax ceeb ah oo dhalinyaradii aan wiilal iyo gabdhaba dadkii aan soo wada shaqeynay muddo 9 sanadood wax dhibaato ah oo haya. balse la tashiyo badan oo aan sameeyay iyo go'aano badan oo aan gaaray oo aan la tashiyada cid aan la sameeyna waa naftayda. waxaan go'aansaday inaan ururka TBG ku biiro. hablahaasi markii aan u sheegay ee aan ku yiri waan idin ku soo biiray, hablahaasi aad ay ii soo dhaweeyeen, waxaana ii magacaabeen agaasimaha guud. taasina waxay cadeynaysaa in ururkani yahay urur loo siman yahay oo qofkii ku soo biiray iyo aasaasiyaasha ururka dee macnaha aasaasiyaasha iyo qof kasta oo xataa saacada ay taaganahay ku biiray. taas waxay cadeynaysaa in urur loo siman yahay waana sunno fiican, waana dimuqraadiyad ay kamid tahay. marka waana dhaqan cusub oo ay noo jideeyeen ururka TBG. aadna waan u salaamaya hablaha aan walaalaha nahay ee TBG. maanta waxaan cadeynayaa maanta oo ay tahay markaas 15 bishii koobaad 2021 inaan iska casilay xilkii gudoomiye ku xigeenka ururka Soobo iyo waliba xubinnimadii kuna soo biiray ururka TBG. wax xumaana haba yaraatee kama sheeganayo wiilashii iyo gabdhihii halkaa igaga hadhay. balse waxaan markii aan la tashiyo farabadan sameeyay waxyaabo badanna aan qiimeeyay, waxaan go'aansaday inaan ururka TBG ku biiro Tough Blind Girls. kadib markii aan hablahaas u sheegay walaalahay ee aan u sheegay ee aan yiri walaalayaal waa idin la shaqeynaya, hablahaasina waxay aad ii soo dhaweeyeen, waxaana ii magacaabeen agaasimaha guud. taasina waa sunno dimuqraadiyadeed waxay jideynaysaa inay ururkan soo beehiin macnaha xisbiyada waaweyn ee Somaliland. marka ma dhacdo qof hadda ku soo biiray in xil loo magacaabo. taasina waxay muujinaysaa in ururkan yahay urur la wada leeyahay oo kii hore aasaasihii iyo ka hadda ku soo biirayba inuu yahay urur loo siman yahay. waxaana leeyahay Tough Blind waa tiriigi faayo taakuleeyaha naafada. Tough Blind waa tiriig baxaayo taakuleeyaha naafada. Tough Blind waxaan leeyahay hadda iyo hadhow toolaba insha Allah shaqay noo balana, waxay noo balana inagoo halkii ka sii wadna hawlihii dadaaladii iyo samafalkii aynu ugu jirnay. waxaanay naga go'an geed kasta iyo geed kasta oo qof Soomaaliyeed oo indhala oo aragga naafaka ama ilmo yar ha ahaada ama gabar ha ahaadee inaan bartiisa ugu adeegno. taasi waa hadafka ururka iyo halbeega ururka. taas anigana ay qancisay oo aan maxaan ku rahday go'aansaday inaan ugu biiro. aad iyo aad baan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay fariintayda ugu dambeysay aan diray waxay tahay haddii aad
haddii aad dhibana tahay laysma dhiibo weligaa. dadka aragga naafada kaana hal fariin baan waxaan leeyahay haddii aynu dhaayo beelay dhabtii weli maynu dhimanay dhabtii waynu nool lahay.